ururka kawahaliyada hogaanka bulshiyo hadoorado hagaa umadiyo hiboolaha halkay ku kulmeen dadkeenu ururka kawahaliyada hogaanka bulshiyo hadoorado hagaa umadiyo hiboolaha halkay ku kulmeen dadkeenu ilinka dimuqraadi horumare hubaaliyaga horseeduwa dadkana waa inuu soo kacayo ergaar siiyo haraatiray ilinka dimuqraadi horumare hubaaliyaga horseeduwa dadkana waa inuu soo kacayo ergaar siiyo haraatiray habliyo dhami wiilal howlkara wax wada doono hankooda leh weelan dadkiyo dalkoodana ururka ka haybad weeyaan hormoodkooduna saciidani habliyo dhami wiilal howlkara wax wada doono hankooda leh weelan dadkiyo dalkoodana ururka ka haybad weeyaan waxaan filayaa mar hore ilmo macnay magaca laakiin General Morgan iyo dad yar kooban baa ogaa sirtii magaca maanta la soo faagay waxa weeye waa kulmiye waa amni waa amaano waa horumar waa iftiin u soo baxay ummadan waa qorraxdii oo bari ka soo baxday oo dayax ku socota oo rabta inay wada caminto oo nabad iyo nolol iyo wanaag iyo horumar gaarsiiso ururka maanta waa maalintii ugu dambeysay soo bixisii waxaan aad ugu faraxsanahay wadeenadii hawshan qabtay shaqadii aan daalka iyo hagrashada aan lahayn shaqadii muddada farabadan la soo qabanayay waxaan joognaa guntii iyo gunaanadkeedii waxaad ogtihiin muddadii hadda dawladdan ay maamulka haysay waxaa ku soo kordhay Puntland idinkaa markhaanti ka ah bulshadii Puntland oo kala laalaaday maanta waa midaysan tahay laga soo bilaabo caluura ilaa iyo saaxa ilaa iyo tawfiiq ciidamadii laga keenay galdogob ayaa waxay gaareen caluura kuwii sanaag laga keenay ayaa waxay tageen gardafuul waxaad arkaysaan ummaddii siday isugu duulmantay amnigii siduu u hormaray ammaanadiinni sidii loo xifdiyey oo maanta waxaad ka dhaahan kartaan dhallinyaradii ciidamada ahaa iyo shaqaalihii iyo howlwadeennadii dawladda inay mushaharkoodii maalinaysa waynu si joogtaa u helaan horumarka ku socda jidadka horumarka ka socda tacliinta horumarka ka socda caafimaadka dumarkii loo soo qaadi jiray markay isku xanibnaan caluura oo doonta la soo saari jiray boosaaso la keeni jiray maanta waxaa ka furan cusbitaallo lagu qabo magaalada caluura bandarbayla xaafuun jariidan waxaas waa horumar siyaasadda ururkan ka uu horena u aaminsanaa uuna fuliyey haddana uu rabo inuu fuliyo waxaad ogtihiin maalinta 25 ah waxaa loo dareeri doonaa doorasho qof iyo cod ah oo bulshada Soomaaliyeed ay 53 sano ku taabaysay waxaan ku faraxsanahay inay qarban nasiib u heshay meelihii ugu horreeyay oo ka fogaan waxaa imaan doona wufuud caalami ah oo dalal badan ka socota oo soo hubin doonta doorashadu ma dhacaysaa sidee u dhacaysaa haddii aad muujisaan arrintaas inay siday tahay u dhacdo reer qarbood iyo eyn iyo ufayn waxaan tallaabsanaynaa meel Soomaalida aysan gaarin oo ka horreysa ayaan ka sii hortegaynaa waxaa noo furmi doona mashaariicda waxaa abuurmi doona shaqo abuurka waxaan rajaynaynaa dhallinyarada iyo aqoonyahanka inay fursado badan heli doonaan waxaa ka muuqata isbeddelka deegaanada Puntland oo dhan magaalada Qarbo waad garanaysaan 3 sano ka hor dadku wuxuu ahaa niyad xumo dadku wuxuu ka baqayay amnigiisa gabdhuhu habeenkii ma socon karin moobilada laga furan jiray dadka xabadaha macno lahayn baa dhici jiray
maanta waad aragtaan meel kastaa laysaga yimid magaalada qardho waxay gaartay in la yidhaahdo wiigan nigaan hurdo fiican ka soo qaadanayna iyo damaashaad nabadgelyo iyo kala dambayn iyo ciidan u hoogan inay sugaan ammaankiinna horumarkaas wuxuu ku jiraa waa kaa aragtidaas cid leh oo kale ma jirto ururada kaleeto dadkay caayaan been bay sheegaan waxay qaban karin bay dadka u sheegaan waxaas wax shaqaynaya maaha annaga waxaad nagu imaanaysaan amni iyo ammaano iyo horumar dad af laga addayn mayno hantida dadka u dhici mayno cidna waxayna xaq u lahayn ma siinayno xaq qof uu leeyahayna ma waayi doona haddii ilaahay idinka dhigo waxaan rajaynayaa dadka maanta nasiibka u helay ee deegaanada ka yimid ee dalkan u soo aaday ee ammaanka iyo nabadda buday ee maanta ka qayb qaatay horumarka qardho ka socda oo horumarkii ugu dambeeyey ee siyaasaddana ka qayb qaadanaya sharaftaas iyo karaamadaas iyo xaqaas aad lahaydeenee dastuuriga cidda inay xaqiijiso waa ka ahay horta ogaada xaafadaha shabeelle iyo meel walba waa inay ogaadaan ninkii shalay la ciiri jirow maanta adiga ha isciilin ninkii shalay la ciiri jirow maanta ha isciilin codkaaga ha isku ciilin waxaan rajaynayaa inay kaasi mudaysan iyadoo wadajir ah ay ugu codayso golaha deegaanka ee sida dheelitiro loo soo xulay oo aan ka rajaynayno inuu horumarka magaaladan uu si xawliga u qabto ma ahaan doonaan keligood aniga iyo dowladoodan waa garab taagnaan doonnaa ururka ka haddii ilaahay idan ka dhigo naf iyo maalba waa la hor joogi doonnaa waxaan rajaynaynaa inaan muujinno si dimuqraadiyadda u hirgasho inay saddexdaa degmo ay helaan horumar ka duwan degmooyinka kaleeto si kuwa kaleetana ay ugu sii noqoto dhiirigelin iyagana ay u galaan waxaad ogtihiin GLBG-ga waxaa loo samayn jiray markuu degmadu konsol samaysato ayaa lagu abaalmarin jiray sida kuwa kaleeto beleddegaa u samaystaa saddexdan degmo waxay nasiib u heleen hadday helaan konsol dadku soo doortay kuwa kale way ka fiicnaanayaan intay ka soo gaarayaan maanta nasiib baad haysataa waxaa la rabaa codkiinna inaad muujisaan qorraxdu waa kulushahay khudbaduhu caaway noo dambeeyaan waxaan iniin sheegaynaa waxa aan ku faanayno ama aan dadka uga hor imaanayno waa amni iyo ammaano iyo horumar iyo kulmin dadka ma kala soocayno ma kala qaybinayno ma noo kala duwana mid joogay iyo mid yimid mid deganaa iyo mid soo degay dadkeenna soomaaliyeed waa noo wada mid dalka iyo dadkaa naga wada dhexeeya xuquuq dastuurigaa na wada siisay inaan mid ahaanno waxaan rabnaa waxaan ka shaqaynayna waa danteenna iyo horumarkeenna waxa dawladnimadu dhisto cid lagama xigo laamiga dadka lagama xigo iskuulka dadka lagama xigo caafimaadka dadka lagama xigo amnigu reereeroo gaara ma leh dadkoo dhan baa wada leh waxaan rabaa dhegihiinna waxaa lagu shubay wax xun oo khalriman iska saara beel baa laga buuxshay beelda iska saara reereeriyo kala qodod baa lagu saaray iska saara danini maaha kuwa waxaas ka shaqaynaya dalkan waa la yaqaanaa taariikhduna waa isqoraysaa dadkuna waa is yaqaanaa dadka wax qaban jira dadkan waa yaqaanaan dadka wax qaban jira dadkan waa yaqaanaa dadka kaah soo galay waa dadkii ummaddan wax u qaban jiray waa dadkii maskiinka u quudin jiray waa dadkii tacliinta ka shaqayn jiray waa dadkii horumar ka shaqayn jiray waxaan ilaga rabaa codkiinna inaad muujisaan waan ku kalsoonahay inaan guulaysanayno idinkana guulaysta soomaaliya ha guulaysato puntland ha guulaysato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu